kulanka waxaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta Soomaalida gobolka Ontario iyo sidii hogaamiyaashu ay xogaha u wadaagi lahaayeen. Isu imaanshaha waxaa si wada jira u soo qaban qaabiyay ururka Walkers Action Center oo ah urur shaqaale oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale iyo Ontario Somali Advocacy Council oo ah gole u ololeeya wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta Soomaalida gobolka Ontario. Today is the third meeting of the Ontario Somali Advocacy Council. We have Somali leaders coming from 7 cities. Waa kulankii saddexaad oo ay yeeshaan golaha Soomaalida Ontario waxaa ka qayb galaya ay tiri hogaamiyaasha Soomaalida ee 7 magaalo oo kala duwan oo ka tirsan Ontario si ay u wadaagaan danahooda iyo arrimaha waaweyn ee ay wajahayaan bulshadooda isla markaana si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin lacagta shaqaalaha, sharciysiinta dadka soo galootiga ah, rabshadaha hubka la xiriira, waxbarashada, islaam nacaybka iyo dhammaan waxyaabaha kale ee saameynta ku leh bulshada Soomaalida. Haddii ay noqon lahayd ay tiri magaalooyinka Ottawa, Toronto, Windsor ama London. Waxaan aragnaa ay tiri isu imaansho ballaaran oo u dhaxeeya hogaamiyaasha iyo dadka ay ka go'an tahay sidii ay u wanaajin lahaayeen Soomaalida ku nool magaalooyinkooda. And people who are committed to making the lives of the Somali community in their city much better. Qabanqaabiyaashu waxa kale oo ay ka dhawaajiyeen muhiimadda ay leedahay in hogaamiyaashu ay wadaagaan xogaha si ay talooyin isaga siiyaan qaabka looga gudbi karo dhibaatooyinka jira. Wallahi isku imaashadan wax weyn ay qabanaysaa sababtoo ah waxyaalo badan aan ka hadalnay oo community-ga caawinayo oo maxay ahayd oo annagii aan resource ku kala qaadanayno markay dhalinyaradii noqoto markay gun violence sida loola dagaalayo caruurta iyo waxaan aan ka hadalnay homework-yadii sida caruurta youth-ka education-kii aan wax weyn ka sameynay education la'aan waxba ma soconaan waalidiinta naftigooda waa inaan educated ay noqdaan si ilmahooda ay u fahmaan. Kulanka waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha la xiriira xuquuqda shaqaalaha, wax ka qabashada dilalka dhalinyarada iyo wacyigelinta la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka. Ka qaybgalayaasha qaar ayaa tilmaamay in ay khibrad ka qaadan karaan Soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn si ay uga hortagaan inay la kulmaan dhibaatooyin sida dilalka oo kale. Meetingka anaga waxaan ka qaadan karnaa dhibaatooyinka hadda ka jira magaaladan sida Toronto oo kale, sida Ottawa oo kale, sida magaalada Calgary oo kale, magaalooyinka waaweyn dhibaatooyinka ka dhaca marka inaan ka qaadanno wixii iyaga experience u leeyihiin. Marka anagana sidoo kale sida magaalooyinka yar aanan barnaamij ka qabin inaan ka qayb qaadanno wixii afkaar anaga aan ku biirano dhibaatooyinka anaga aan qaadano si bari waqaaya aan uga sameeyno anaga aanan dhibaatada oo qaabkan kaga gudbi lahayn anagoo haysano marka risidkii hore anaga aan sameeynay barnaamijka ay wax lamid ayaan ka qaadan karnaa. Qodobada hogaamiyaashu ay si koox iskula falanqeynayeen waxaa ka mid ah sidii Soomaalida loo fahansiin lahaa jiritaanka cudurrada ku dhaca dhimirka iyo in aysan ahayn wax la qarsado. Dhimirka waa run Soomaali ahaan dhimirka waan qarsanaa family-gii isagoo ay haystaan problemkaas ayuu qarsanaya haddii uu sheegana waxaan noqonaysaa wax la yiraahdo ma garanaysaa in lagu sheekaysto oo kale macnaha family kale asaasay sameeyay saas marka annaga community ahaan macnaha dadka leaders community waxa muhiim saaran in aan dadkii ku wacyi gelino inay waxan tahay wax jira lana iska daweyn karo islaamiyana aan ma garanaysaa heli karno dad ma garanaysaa dhaqaatiir psychology oo si fiican oo simple ah oo yani according to dhaqankeena ah qofkii uga daweyn kara. Dad badan ayaa rumaysan iskaashiga iyo isu imaanshaha hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ontario inay wax badan ka tari karto wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta bulshada.